runtii markii hore pericardial effusion aan ku sheegnay. Halkan marka waxaa jira markaan rabno inaan kala fahmno pericardial effusion iyo pleural effusion, markaan rabno inaan kala fahmno waxyaabaan fiirinayna waxa waaye waxaan fiirinaynaa descending aorta. Descending aorta haddii ay biyuhu ka sarreeyaan, biyuhu waxay ka sarreeyaan descending aorta, taasi waxay noqonaysaa marka pericardial effusion. laakiin haddii descending aorta ay biyahaas ka hooseeyaan waxay noqonaysaa marka muxuu ah pleural effusion. Marka taas waa marka farqiga u kala dhexeeya pleural effusion iyo pericardial effusion. weli marka waxa waaye maalintii dhaweyd bukaankan markaan cabiray wuxuu noo sheegay inay tahay maaragta muxuu ah kii cabirku ilaa iyo 23 millimeter, laakiin hadda yacni cabirku waxaad moodaa in uu yahay qiyaastii 20 millimeter oo keliya. marka waxaa reduction baa dhacay oo maaragtay xagga ku saabsan biyaha. marka saas daraaddeed marka tani marka waxay noo tusaysaa marka in aan ku taaganahay wado maasha allah. marka keliya waxaan rabay inaan maanta sharaxo farqiga u kala dhexeeya pericardial effusion iyo pleural effusion. keliya waxaad ku kala fahmi kartaa adoo fiiriya maaragtay muxuu ah kii descending aorta. haddii biyuhu ay ka koreeyaan descending aorta markaas waxay noqonaysaa pericardial effusion. haddii laakiin descending aorta ay ka hoos maraan biyahaas waxay noqonayaan pleural effusion. waa Dr. Nuno oo idin leh ka faa'iidayso wanaagsan.